وبركاته كلنا يداوشها بني ذي الهانتي ملك السؤال جوكتان يسك السؤال من مغليسان هل كانوا فرتون لك وفيشال داود يالسود وهذا الوقت وعن يعني رجلنا برامج كمان تيجي وضنه waxaa inoo soo tibin doona qaar kamid ah asxaabta channelka Fortune Luck Official oo ala uga barateen inay ka soo tibiyaan riwaayado iyo short films hadaba barnaamijka waxa aan soo tibin doona oo ana qayb ka noqon doona oo aan kaga hadli doona gabahantiisba maadaama dhawaan aan jirnay riwaayad ku saabsan forexiska qaybta ama dhanka ku saabsan ilaahda riwaayad forex ku saabsan gaar ahaan qaybta ciladaha ay leedahay iyo dhibaatooyin xilliyada dambe dadweynaha ay ka dhaxleen kaga hadli doona maraba asxaabta qaabka reactionka iyo waxyaabihii macnaha ay ka yiraahdeen dadweynaha Soomaaliyeed ee daawaday riwaayadaas hadaba barnaamijka waxa igala qayb qaadan doona qaar kamid ah asxaabtii barnaamijkaas riwaayadaas wax ka jiray dhankii mid waxa fadhiya Idris sidoo kale dhankii bidixna waxa fadhiya Ahmed oo riwaayadaas qayb ka ahaa iyo riwaayado kale hadaba ugu horeyn waxaan ku soo dhaweynayaa Idris horta barnaamijka ku soo dhawaaw aad ku dhawaad barnaamijka asxaabta asalaamiin asxaabta qiimaha leh dhamaantii waa saameyntiin daawadayaashan ugu xiran aad ku dhawaad ma santahay Ahmed ay soo dhawaadana ana waa soo dhawaay asxaabtana waxa la soo dhawaada marka waxa waay barnaamijkeeni caawa saa'id oo jidin riwaayad oo hore u socotay forex reaction sameynana iyo dadka waxyaalaha ay noo soo qoreen insha Allah waa tahay waa maasiin asxaabta sidoo kale waxa ku jiri doona asxaab kale inkastoo asxaabtii riwaayada ka qayb qaato dhan aanan caawada aan noo suurtagelay in halkan kaga soo jeedsan ama ka daawataan hasaateen qayb kamid ah Abdullahi oo kale sidoo kale asna nagu soo biiri doono oo asna hawada ku soo jira waa tahay Idris ku bilaabo wareen ka waran riwaayadii maxaa ka xasuusta maxaa ku la yaabana inta kale riwaayad ku wareysay jishid masooray filmaan iyo riwaayad noocan kale waa ka soo qayb gashay riwaayad duureys horta Luck Official ka baxday aad ka qayb galo waxa waay horta riwaayad la yaabkeeda wadatay waxa waay labada dhanba hadii loo fiiriyo inkastoo hadda maanta dhanka aan jin la ahayd waayahda wacawashada ka jirtay dadka iyo waxyaabaas ku saleenayne si loo ogaado wax jiro laakiin mar walba way wanaagsan tahay banaadinka dadna waxay dad wanaagsan meesha wax ka tusayna intaas ahayd laakiin waxay u yaab kumeed waxaad reaction mar aan saaxiibkay ku qaadin horta mar xaalada kugu xumaato lacagta wala jirsaday runa u maleynaa saaxiib aan taas runa u maleynaa lacagta maqay lacagta maal gashatay meesha markaas ma lacag fiican markaas maal gashado aan ku jiilay adi lacag 3,000 ku camal ku dhawaad ahayd badad gaday lacagta bajaajta geedka cambi waxyaabo badan oo ugu yaabsan markaas waxa beerleyna ahayd u sheeg dadka isuna hal geed aniga saaxiibkay lahaan gata ay moodaan ugu yaab ku badnaa ay dadka ma ku dheernaa ma soo cilmi amniyo bajaajta gaatay maxay ahayd ma asxaabta dhan way weydiiyeen in maxaa kuuma ogeyn waxa markaas waxaan dhahay wixii in riwaayadeen oo sheegay dadka qaarna way daawadeen oo markay si dhameystirtaan dad ayagoo qayb koowaad daawaday oo qaybay kala arkeen ay weydiiyeen hata Idris oo ku salaaman doona inta isweydig Ahmed ay ka waran maxaa markii inta riwaayad ku jirto horta maxaa ka qosli والله أرتاح روايد بحاجة قصر سي عبد الله ولا عتل قوي وحوا إن رجع فيسبوك وصفر بينا بيت كسر من فيديو كذا كافي نكاني هذيك مال تاجينا إن هذيك وحوا هذيك مركسن أنا مركسن باكي وحوا أنا كحرتي باكي حرن يكون قرنتي حرماتي وحوا فرنت هذيك وحنا كأركين يوم مركي برنامج كذا شيء لما سنة فيديو عبد الله صدري واحد على استورتنا قبطي صحتها قبطي ها سلام حركه سو دعيسه ما بوجيده markii صح halka aan ku soo qabtana markaas daa badbaadi leeyahay ku dhici lahayd fashil aan leeyno صح markaas sagaashka ka soo gaar halka aan ku qabto soo Idris oo sidoo gasna gaariga soo gaaray gabadha qabtay aad yaad marka ka waran riwaayad ku wareysmeeyay wallahi riwaayad wareysay aan jilay farda sax waay waa ka baxsata leedahay horto inaa ka baxsaas kuma arkin laakiin sax waay qoraal badan ay helay ata يا وصل حتى diaspora iyo maleen قيد diaspora lacagta ugu badneeda gashtalo 200,000 بسم الله dadku yaabeen digaa la leeyo boqol taken صح 200,000 dibadda ka shaqeysta dhahani khayray marka aanu ma jidka soo dhaxal leeyahay forex fahey صح forex ani xataa waa dadna soo cilmi ama ku dhin ruwaayad waa hilmaamay waxa lagu leeyahay
فوركس مكسو كدب بس واحد مركز صح marka waxay ninkii ugu milyaneersana oo lacagta badnaa iskorkaas haystaa markii okay wata dadka miyasa ka waran dadka dadweynaha ma ku dhihnayaan oo saa ku sheegay waxa waaye laakiin saxmiyad dad ma kiima tarto middoodka ma weligeed dalka ma bixin baad weligeed ma ful ay gelin diaspora ay gelinayo wata cidrisay waxa ay wali ama waxyaabaha ku qosla dadkii ku qoslaysa kamid ah mid comment ku soo qoray wuxuu yiri ninka dibadda ka yimid waa gartis lacagta inoo gastay idinkoo dalka joogteen inta yar xaraasteen dhibaatada aad dareemi kartay xaatooy heerka dhibaatada ay taagan tahay heer oo saaxiibkiina horta la soo xamaraysaa sax laakiin aan mar oo Cabdullaahi oo hadda ninka ka dhawaaji oo dhahay forex waa qasartay nin horta markuu horeed lacag runaa inay ugu jirto umaleynaayo sax markaas aan shakiyo aniga in lacag ugu jirto umaleyn riwaayadna waa ka tagaa markaas lacag runaa umaleeyay markaas markaas waxa sir haday ugu jirto ma wada isweydiin horta ma jirnaa dadweyne ku soo waxa ku dhahaniyaho bishii aakhirkeeda la gaaray shaxaad ku soo wadiisteen oo kale forex waxa lagu qabsaday adiga aakhir iska dhaafay maalinta markii wada baa janna intaan la gaarin lagu lacagta soo dhacday intaas aan siina intaas siina dad is qorsheenayo oo ogsiyo balansan qorsheenayo lacag intaas aan ka rabaa ogsiyo balansan wixii inay riwaayad dad badan ma wado marka dambe taagada lagu wado soo ma ajiib haa gartay wallahi riwaayad la yaab kale la horta tahay kiila markii adiga waxa waa inuu su'aalo anu babisay tada ku weydiinaa markii 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 uu dhifaniyo marka wuxuu yahay horaad maxana aniga xataa su'aalo su'aalena ku weydiinaa markeen sidaxsan okay waa inta jilis macna ma xaqulaya ka badnaa riwaayadan maadaama riwaayad ugu horeysay channel Fortune Lucky kamid ahay asxaabta wax ka jilisay waxay ahayd waxyaabo mataqaanaa waxyaabo badan ay soo mareen dhanka dadweynaha hadii ahaan isoo kale riwaayadda ku guda jirnay oo kale waxaa kamid ah Idris oo baba aysan gaaray ku garan baba Idris warasa ka qaad soogtay ni asalaam alaykum baba akso bishinki baba soo galay yaa Idris waxa ka markaas oo mugtaha sanadkiisa waay kala gargaar wuxuu soo fidiyay oo degdeg wahay markaas maadaama uu ka imaado markaas meel guban Soomaal xarun guban soo badbaadinaysa meesh gubanaysa marka orodkii wixii soo galay xogaanka soo dhiiday mugta saarika markaas arkaysta markaas salaanay wajigiis markaa baa ku soo qoray waxa soo qorantaniyo baba adiga oo galana gaaw dad baraa soo dhanay ninka baba waxa u dhahdaniyo marka captain iskeed iyo riwaayadda lagu jilay sidoo kale waxay ugu naxdin badan markii oo aad tagnaa mataqaanaa oo albaabka xiran oo aragnay forinti ku qoranta oo ninkiin inta wacnay ilaa uu dasiya yaa in ilaa kadib noo keentay dadka uga dareeri kartaa oo qabta ka dhacday waxa ka dhacday mid kale inta barnaamijka asxaabta waxay dhahayeen forex-kan macnaha barnaamijkan forex inoo furanta warna dad shika footeen miyaa forex live miyaa saca lacag ay ninkasanina kala su'aalo ku diinaniyo waxa la riwaayad fikirkeeda adaas kala سيناسن حانيو برك أبرامج كأكينسي يا أنت كيف درت أروح صوف نيو أحمد سعود عجرتي عبد الله تغطى نعيش عبد الله إنه ياسين ودي حلا يا بنا دك صوص حلا يا بنا أنا حلا يدي من لير أو حاجة دقي أو دياسبرا هذا حكى دقي نيو نينك نعيش ترته وفادي أنا إنه حواي بابا غيرته وفادي صوته مركز بابا حلا يا بنا متخن نعم الله لا توق عمل على دقي توق أوكي وجهي سوق أتلسي ورسلت نص عبد الله مسكين وجه وجهي أركنيو هذا كسر جرا هرتا رواية فكر كذا أنا أسكال هاي لكن غيرت الدايركشن دايركتيجا وحكاية فرتونة كده صح طيب دايركتيجا إنك استفدنا لأن فرتونة تقولي دي سالك فيديو لكن ما كان فرتون كله ضد كاسحات وجيه شوي كله تقارنا قفك وتوجه وكله قفك مسكين أنا كله مسكين مسكع غير ضد كله دعاء وكله مسكين تاين القدرة إذا كنتي لكن فكر كبركة أرجعنا متخنا bulshada Soomaaliyeed shirkado badan oo forex software horumar waay maxuma oo macnaha dhaqaale abuur waay hase ahaatee marka la fiirsho dadka qaar dad kasta oo meel wada galaan dad xun oo ku jira dad fiican way leeyihiin marka dadkaas marka aan dad xun oo iyaga laftigooda oo barnaamijkiisa si khaldan ka dhigeen oo dadkan lacag ka urursadana la goynayaan kala keenan barnaamijka waxa uu talagalay inaan macnaha ugu soo dhacay fikirka ah inaan wacyi gelin ka sameeyno oo riwaayad noocaas sameeyno marka asxaabta la kaashaday Fortune la mid tahay marka إيجنا وحواي وسودوين برامج ساسا مركو كوجلنا. والله فكرة أدوينك سوا حواي
waxa waaye reaction badan ay la sameeyay dad badan waxa waaye waana soo waceen waxay leeyihiin shirkadan dad waxay leeyihiin markaan xumaan oo arkaan waxaan jilayno dad wax arkaan wanaag marka waxaa leenahay akhyaarta dadka waxaan jilayno waxa dhaxyaalo dhacwa jiraan waxyaalo kalena anaga ku tirsana waxa waaye xogaa iska baasha hadda qaran uu soo biir Abdalla iyo Reehan soo gilal Abdalla soo dhaweynayna insha Allah waa tahay waxaan ugu soo biiray Abdalla ugu horeyn Abdalla markii cid ugu dambeysay waxa waaye kanadu si gal rabay daan khaldanayn Abdalla warta soo dhaw kiila iyo Axmed iyo Cabdulus iyo teamka Fortune iyo cameramanka Cabditax dhamaan waxaa leeyahay way wanaagsan iyo dhamaan daawadayaasha sharafta leh ee Fortune Lucky Official ku xiran dhawahay abaarna way jafayeen hawada inta ku soo jirta anaga soo daadasama waa la sheegay in abaar ay jafteen inkastoo aan jeclaan lahaa inaan ka warqabo waxyaalaha iga sheegteen laakiin abaar cameramanka waxyaalaha ay si taabtay لكن لعكتي تكون قط إلى أحمد ما إنك لعكتي تكون قبنيو محاربة لعكتي تكون قنية دقالة بس كده هو قال لك كورنا وحن كودين دونا ما دام رواية قيمة كارت أسكت لو درت كورة رواية فوركس ما دام تكجلس إن قيمة متقارنة إن تجمع كورة رواية هرم صوج الشيء والله إنه رواية دي وهرسة كبحضة بيتك Fortune Lucky Official هاد kastoo aan hore barnaamij kale aan meel kale ka soo qabtay jirtay dabcan door waxa lagu aadiyay aamudneen sax in kastoo wixii iska tahay macnaha riwaayada iska tahay laakiin sida oo caadiga ah oo inta asxaabteeda wixii comment gadaal iga soo dhiibtay la soo xiriiray leeyahay Cabdullaahi meel aamudneen baa lagu aadiyay maxaa laakiin markii dadka qofka barnaamijka Firaawada ee director ka ahaa wajiyaashan markii la fiirshay in aad tug mudan tahay oo wajid tug leedahay dadka lagu qaatay ma meeshan waa ku soo baxay dad badan haleeyeen kaas waxa meesha ku haboona waxaan malan laakiin Soomaali kale in isku aamin doonin oo run laga dhici doon wallahi kiila ya Axmed dabcan saa hore u sheegteenba روايد هذا حيس بنات حيسيد هذا أسري صح طبعا دور كأن كقاطني كل وحسكها صوروا شيء قبل عملنا إن اللي يجي لكن عسكر واحد وهاي أصحابته ده حاليا يعني توب ماهي ومن إيكي ومن أي كان دونه لكن حواي وجود كلا كلا واحد هاي جلين لا جل كروح فهمت marka adoo maskiin oo jiri kartaa shadaani oo jiri kartaa riwaayadan waxay riwaayadii aad xiis gelisay dabcan markii aan duubeeno waxa igala qumanaa markii la soo dhigo oo marka koowaad oo soo dhaco editing ka soo baxo barnaamijka la diyaariyo oo qolada editing ay soo habeeyaan la soo geliyo YouTube-ka marka qaar waxaan jira qofka koowaad oo daawada xiisaa ay heeysa darteed sax marka marka qaar ana isku qosli jiro kan tuugana adii jireeysa ya صح dadona comment ku soo jafay inuu arag wallahi waa arkay marka waxa la yani tuug maahi dalkana kamaana bixin dadka waxay arkeen markii riwaayada bilaabay mobile niclaa wadatay wallahi sax markii ugu dambeysay riwaayadan waxa wadatay telefoon iPhone 9 waxyaalaha aad ku xiisa geliyo waxa kamid ah qaar waxa leeyahay Cabdullaahi riwaayada qaybtii koowaad marka jileysay adoo baaba ah oo mugdi ah yaa koofi oo dadka iska qarinaysid wadatay maxaa markaa markii dambana waxa ahayd ma adoo iftiinsano waxa waaye oo labis qurxoon wadatid mobile kambalo wadatid balaa dabdalaysid sax marka waxaan dhahay wixii dadka qof markay waxay sawirteen marka hore inay dhab ahayd inaan baaba ahaa oo waxa la yiraahdaa kadibna aan lacag helay oo waxa la yiraahdaa abid marka qolada xataa editing-ka waa amaanaya ayaga oo riwaayad isku aadiyay oo marka hore ka dhigay in anaga aan ahna dad mugdi ku jiro dad maxaa baaba ah marka dambana aan waxa la yiraahdaa sawirkana saxda soo muujiye kilo riwaayad aad u xiiso badneed Axmed iyo dadka doorka ugu fiican ku lahaa waxa kamid ah Kaafiya iyo Idrus marka dalka soo tagay marka yes ninka saaxiibka kamaanka tuug ma ahayn sheekadana ay igu soo biyo shootay waxa aad xiiso geliyo waxa kamid ah
السلام wuxuu yiri aad iyo aad salaam ma suurta gelin asxaabta in halkan kasoo muuqdo si wanaagsan wuxuu dartay qaali ninka qaalida wuxuu yiri nin Cabdullaahi maxaa la yiraahdaa aniga dad ma dhici kare maxaa la baalkaasi sax aan dad laakiin soo qiyaasama hargeysa u dirtay hadde ma lacagtan ila cun marabin waqti maadaama daacada oo riwaayad ku laakiin waxa la yaabay nin Axmed la yiraahdo wuxuu 200 kun gashanaa yiri ana daacada u maleyn diaspora inuu maleyn marka wax ku fikirnay 200 kun hadaba gacanta ku dhigtid sax wax kala habar raadinay la gooyo iyada ka badan انا حتى ما الى مكتب مالك تفحص ده مش سمر انا روايد صار مكتب xafiiskin mashin maalinka saas uu wareegaa wallahi saas uu wareegaa maalinka dambe baaritaan la gashay sukar la hela قبتني تصير كذا رائد هذا وحس بدنات لكن أنا اللي قدر يعني هو مش قيس دياسبرا هاي رجع حكي هذا قف حراش قافي واحد ترجوري سوق قدرتر وعجيبة هذا بقى بالعجيبة هذا والله روايد واحد حكى قصدي مركز روايد أنت كنت جرتها ما هو نحن بنا والله قبل اسكو قصلاhay waxa waa la yaab koodi waxa ana qaybteeda taa isku qosla marka qaar marka ani qayb ahaanteeda markaas daawad asxaabta waxyaalaha aad ku yaabka badna waxa kamid aha shirkada qaybtii hore Abdurus iyo maxalliga ninka la yiraahdo Zaafki Akila ninkii salaam wuxuu ku bilaabay inay baba tahay ku bilaabay ninka baba yaa maada ergay waxyaalaha la yaabka la kamid ahayd iyo markii ugu dambeeyso qaybta aad iyo aad wax maasada badneed markaan daawaday oo aan xilligii la duubay ma aan xilligii daawashada akil ina aad waxa maleynaa ina soxday soo dhacay la marka xasan ninkii oo saaxiibka inuu amu kaan naxay maalinta markaas amu naxdin ka qaaday ku inkaara isdhaayay ma ama eedeysata gartay taas waxa iska cafiyo ala qaar la yaabka la waxa kamid aha aniga isku qoslay maraan dhahay waa baxaya oo dhoofirtay sax markii ninkii aan la hadlay oo macnaha xal yiraahdaa tikidkii jiray inuu diyaarad waa buuxda ana niyo waday maxaa ka galal qoftuur مسماسخ هل قفتور لعقتنا ديبا يا لعقتنا ديبا nin xariif waa asna wuxuu yiri ayuu taas laftiga badan way dhacdaa Soomaaliya waa dhacdaa qof waa balan kala loo sheegay ma nibil kale to diyaarada bixisantay ama shay wax kala dhacaa la badan way dhacdaa midda kale dadka qaar su'aalo ay soo weydiin ayaa jirta maxaa Dubai u marto Turki u diiday ya sax ana waxa ujeedku macnaha waxa waaye in shaakada xataa wixii habkii loo jilay xataa inay wax saxsan noqoto oo meel sax soo raada tiraado waa dhumana meel ku dhumi karto inay heli kartaa ya hadii aan mar ka baxo aan Turki tago adduunyada waxa jirto maxaa la yiraahdaa waa soo socotaa markii waxa laga yaabaa in Turkina waa meelaha ugu adag oo laga bixi karin midda kale xiriir wanaagsan la leh Soomaalida iyo dawladda Soomaaliya kale marka hadad ka fikirto waxa laga yaabaa Turki amartin lagu qabto laakiin daway aad ku badbaadi kartid midda kale asxaab badan waxa jirto oo telefonkay soo wacay habeenkii barnaamijkaas baxay oo maadaama ay telefonka waa damsan yahay soo wacay urniga waxa ku dhacay telefonkaada oo badaaran yahay oo kanada maada aadamiya maadan bixin ama lagu qabtaa iyo waxa kale ama shaxadii lacag lagu diiday dad badan waxa jiraan oo asxaabtaada ku xiran hadii marka lacag intaas kale lacag qaadatay waxa ka soo wadiyo dhehniyo kaas ka dhuwan hadana xawaay waxa jiray oo lacag ku sii tashtaba markii oo maalmo ugu horeeyo okay xafiiska furto ku sii anaga la amalnaa farkisa ina furane kaare maxaa dad badan oo ku sii tashtay dad badan oo shaqa ahaan i weydiyo dhaaynimayo waxa waay meesha shaqa ama booska banaan tahay iyo wax la mid ah midda kale xaalada la yaab kale waxa kamid ah ninka qaaliga mara dhaaniyo waa 200 aan ku siina lacag ah 200 ana kaba ku casaystaayo kaleeto yaa dad badan dhahayo 200 kaba ku casayna ma tahay toosata dhaay jirta ana lacagtaas ma heesano tawartay maaha ana casayna ku jirtaa أنا عسنا كنت نعمل. حواني عبد الله مركا أركب. ودي العكت اللي لقوا سنة يرتو. وجي يست أركب العكت اللي صح سنة اليوم. تقول صح سنة. أصحابته وشيء أنا نتوقعين. يا وشيء. يا روايد واي. عبد الله يتفهمين. فوركس نوحواي نستجنود وحياة قارك جيران واجران. وعاوا برنامج ها برنامج أحمد قاعد أحكي فوركسكا وشقو مهمة أو بالشدة الصومالية هذا wax ka fahmeen dhalinyaradana aan ku dhiirigelinayno in ay maan gashtaan in ay bartaan waliba in ay bartaan ay gacantooda ku shaqeystaan wax badan waan ka aragnay oo cilmi iyo baxthi badan waa subinay طبعا inta aan ka hadalna waxa waa wacyi gelin waa anaga
waxaa jiri karto dad oo maxaa la yiraahdaa oo aan cilmi u lahayn oo sida hadda aan subino kala subi karo oo macna xal yiraahdaa lacagtaas oo amaanada ma khasaar runa gali kartaa ayadana waxa loo baahan yahay inaad isku hubeysid meesha aad maal gashanaysid sidoo kale tana waliba waxaan ku dhiirigelinaa saa hor u sheegaba in dhalinyarada cilmiga u leh programkaas inay bartaan wala baran karaa baxthi badan ha subiyaan anagana ma ujeedkeena macnaha inaan xumeynay barnaamijkaas laakiin waxaa tusayna tusaale ahaan in barnaamijkan uu wanaagsan yahay laakiin ay jiri karto dad caynka tusaale hadda Khalid wuxuu ku jilaayay in uu daacad ahaan programka u wado laakiin ninka la yiraahdo Cabdullaahi oo ku jilaayay in wax wixii uu kharbado dhaco marka waa laga heli karaa xataa hal company dad wanaagsan dad xun waa laga heli karaa fahmaysaa marka dadka xunna macnaha xalida ayagana waxa leeyahay bulshadiina ku dheelinina hantida ummadda Soomaaliyeed dhamaan dadka dhan wada anfacaysa yaa lagu dheelin barnaamijkaas riwaayada kaleeto waxay gelinaa insha Allah waa soo wadnaa midda kaleeto bulshadii intii nagu soo dhiirigelisay ayagana u mahad celinayaa intii aniga si gooni ah isu ataagtana dabcan ma maasinyiin waxa uma qabo wixii tuugi dhaay wixii kale too halgeeyaa ama qabo cabsay because aniga tuug maahi raayad la ku jilayna ayagana kama aha macnaha xaasinimo waxay ka tahay macnaha raayadii maadaama xiisi balki macnaha aad u sareeyay waxaa leenahay raayada kale too xiisa badan waa kala socon doontaa dawladda janaalka Fortolak official aduu ilaahay ma iyo team kale ka balaaran waa tahay in Axmed ayaa hadeen maxuu soo gabagabeynay horta gabagabada inta la gaarin waa su'aal oo macnaha dadka isoo weydiiyeen aniga waxa waaye magaca ku jilay Cabsalaan Shindil ay meesha ugu qornaan Shindil magacaas aan mili dad askale dad gooni u yahay magacaas waxa waaye Cabsalaan waad soo qaato afkiisa ku soo qabatana magaca dad mugta marka sax Cabsalaan Shindil asaga soo turto waa tahay barnaamijkii koobnaa ee aan ugu talagalnay asxaabta xilligan isla markaasna aan kaga hadlaynay riwaayadda dhawaan ka baxday ee Forex channelka Fortolak official isla markaasna aan ku cabirinay qaabka khaldan ee loo isticmaalay Forex intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa tan iyo kulanti dambe baadii Fortolak oo leh sidaas iyo nabadgelyo